السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى أنتم بخيارته هذا نقدر عن إيساي هالكني وأمريك ميديا. qodobada warkaan ugu door korona caawa idinku hayno waxaa ka mid ah ciidamada gaarka ah ee canfarta loo yaqaano liu booliska oo la sheegay inay weerar ku soo qaadeen maanta gobolka city ee deegaanka Soomaalida. Suudaan iyo dalka Itoobiya oo la sheegay mar kale inuu dagaal dib uga qarxay xuduudka labadaasi dal. guddiga doorashooyinka ee dalka Itoobiya oo shaaciyay habka loo maamuusi doono musharaxiinta ku tartami doona xilalka kala duwan ee dalkaasi Itoobiya. qaxootiga reer Itoobiya ee ku sugan magaalada Khartoum oo sheegay in loo geysto tacadiyo ka dhan bini'aadanimada. Soomaaliya oo diiwaan gelisay kiisas hor leh oo cudurka COVID-19-ka. xildhibaan Ilhaan Nuur Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada ee baarlamaanka ee looga arrimiyo dalka Mareykanka oo sheegtay in tallaabo cad laga qaado Maxamed bin Salmaan oo ah wiilka boqorka Sacuudiga uu dhalay. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeena ku maqli doontaan haddii ay baraali ka noqdo. isku soo noqod wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo aan ku bilaabay waxaa la sheegayaa dagaalo xooggan inay ka socdaan gobolkaasi city oo ka tirsan deegaanka Soomaalida. dagaalkan ayaa waxaa la sheegayaa inay soo qaadeen jabhado hubeysan oo ka yimid deegaanka canfarta halkaasi ay soo weerareen dad ku sugnaa magaalada la yiraahdo Cadeyta oo ka tirsan gobolkaasi city. halkaasi waxaa la sheegayaa khasaaro dhimasho iyo dhaawacba inuu ka dhacay balse aan la xaqiijin karin tirada ku dhimatay ama ku dhaawacantay. waxaa sidoo kale la sheegayaa in ciidamadani ay sheegteen soo weeraray deegaankaasi inay yihiin Ciisa Liberation Party jabhad la yiraahdo oo halkaasi laga aasaasay. balse dadka rayidka ee Soomaaliyeed halkaasi ku sugan waxa ay sheegeen in ay maamulka canfartu ciidamada liu boolisku ay qayb ka yihiin oo ay dagaalka dhinacooda kaga jiraan. waxaana dad shacab oo halkaasi ku sugnaa ay sheegeen in duulaanku yahay duulaan ka dhan ah in Soomaalida laga soo raro deegaankaasi oo gebi ahaanba dhulkaasi ay gacanta u gasho maamulka canfarta. waxaa sidoo kale ay shacabku sheegeen oo ay dhaliileen maamulka dowlad deegaanka uu hormuud ku yahay Mustafa Maxamed Cumar oo la sheegay inuusan ka hadal arrinta dhacdada halkaasi ka dhacday. dadka Soomaalida halkaasi ku sugan ayaa sheegay in mar walba maamulkaasi uu canfartu weerar ku soo qaado dowladda deegaanka ee Soomaaliduna Mustafa Maxamed Cumar uu hormuud ku yahay ay iska dhigatiraan jawaabna aysan ka bixinin. dhanka kale dalka Itoobiya dowladda Suudaan ayaa la sheegayaa inay ku dagaalamayaan xuduudka u dhaxeeya labadaasi dal halkaasi oo la sheegay maanta inuu dagaal culus ka dhacay. dad goobahaasi ku sugnaa ayaa sheegay in labada dhinacba ay soo adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan iyo qoryaha waaweyn ee darandoorka u dhaca. walow aan la xaqiijin karin dagaalkaasi dhimashada iyo dhaawaca ama khasaaraha ka dhashay balse waxaa la sheegayaa halkaasi oo xaqiiqa inuu dagaal culus ka socdo u dhaxeeya labadaasi dal. waayahanba waxaa jiray colaad ka aloosnayd labadaasi dal gudahooda ay isku haysteen xuduudka. dalka Suudaan ayaa sheeganayay gobolka Alfashaqa inuu kaga maqan yahay deegaankaasi ama dalka Itoobiya, taasina ay sababtay inay isku daydo dalka Suudaan inay gacanta ku soo dhigto gobolkaasi kaga maqan dalkaasi Itoobiya. taasina waxa ay sababtay dagaalo culus inay halkaasi ka dhacaan bilihii la soo dhaafay balse maalmihii hadda u dambeeyay waa ay deganeed hawshu walow ay hay'adaha caalamiga iyo qaramada midoobay ay ku kala dhex jireen oo la isku dayay in la xalliyo dagaalka u dhaxeeya labadaasi dal. hadda waxaa la sheegayaa maanta halkaasi inuu gobolku isugu dhacay iyadoo dagaalku ka socdo balse aan la xaqiijin karin khasaaraha ka dhashay. dhanka kale qaxootiga reer Itoobiya ee ku sugan magaalada Khartoum ayaa sheegay in loo geysto tacadiyo ka dhan bini'aadanimada. waxay sheegeen in ciidamada dalkaasi Suudaan ee boolisku ay xidhxidhaan oo qabtaan dadka shacabka ee Itoobiyaanka halkaasi ku sugan ayagoo haysta aqoonsiga ID-ga ay siisay laanta qaxootiga ee u ogolaanaya inay halkaasi qaxooti ku ahaan karaan. dowladda Suudaan ayaan arrintaasi jawaab ka bixinin balse qaxootiga reer Itoobiya halkaasi ku sugan ayaa warbaahinta la wadaagay in loo geysto tacadiyo aad u culus. dhanka kale guddiga doorashooyinka ee dalka Itoobiya ayaa shaaciyay habka loo maamuusi doono musharaxiinta ku tartami doona xilalka kala duwan ee dalkaasi Itoobiya. waxaa la sheegayaa halkaasi ay sheegeen guddiga doorashadu
inay isku dayaan inay qabtaan doorasho xor iyo xalaal ah oo ay ka soo qaybgalaan muwaadiniinta u tartamaya in dalkaasi ay hogaamiyaan. guddiga doorashada ayaa sheegay inay la wadaagayaan baraha bulshada iyo saxaafadda sida ay u maamuusi doonaan doorashada ka dhici doonta dalkaasi Itoobiya, waxaana ay sheegeen muddo dhow inay qaban doonaan barnaamijyo la isku dhaafsanayo dooda. sidoo kale guddiga doorashada Itoobiya ayaa sheegay in ay haddii laga maarmi waayo ay ku dari doonaan ilaa 4 beri waqtiga isdiiwaangelinta doorashada dalka Itoobiya. dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay baadhitaan ay ku sameeyeen 48 saac ugu dambeysay oo la xidhiidha cudurka coronavirus-ka. wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay 48 saac ugu dambeysay inay baadhitaan ku sameeyeen 1830 ruux, halkaasi oo ay sheegeen inay cudurka ka heleen 304 ruux. waxaa sidoo kale ay dowladdu sheegtay in ay adag tahay in baadhitaan guud lagu sameeyo gebi ahaanba dalka Soomaaliya, balse ay isku dayaan inay dadaalaan oo ay baadhitaan guud ku sameeyaan dadka ku sugan gaar ahaan caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho. laanta caafimaadka ee dowladda Soomaaliya ayaa ku bogaadisay dadka shacabka Soomaaliyeed in ay ku dadaalaan oo ay ka cararaan goobaha dadku ay ku farabadan yihiin, iskana ilaaliyaan cudurkaasi inay si dhib yar ku qaadaan. waxa ay sheegeen cudurkani in Soomaaliya uu dhex mushaaxayo dad badan oo wali la baadhina ay hubaal tahay inuu hayo, khatartiisuna ay badan tahay. haddana haddaan u leexano dalka Mareykanka, xildhibaan Ilhaan Nuur Cumar oo ka tirsan aqalka wakiilada ee baarlamaanka ee dalkaasi Mareykanka ayaa soo jeedisay in cunaqabatayn la saaro dhaxal sugaha dalkaasi Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. hadalka Ilhaan Cumar ayaa imanaya xilli ay sirdoonka dalkaasi Mareykanku ay sheegeen dhaxal sugaha dalka Sacuudiga inuu ku lug leeyahay dilkii loo geystay wariye Jamaal Axmed Khashoggi oo horaantii lagu dilay dalkaasi Turkiga gudihiisa. wariye Khashoggi ayaa 2 Oktoobar 2018 lagu dilay qunsuliyadda dowladda Sacuudiga ay ku leedahay dalkaasi Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul. warbixinta laga soo saaray aqalka cad ayaa lagu sheegay in dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Carabiga Maxamed bin Salmaan uu ansixiyay dilka saxafi Jalmaan Khashoggi oo lagu dilay dalka Turkiga sanadkii 2018.